السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لما أصحابتي سو دوادا أصحابتي waxay noo socday casharadeenii imtixaanaha oo aynu uga hadlaynay barashada xisaabta khaasatan dugsiga sare chapterkiisii ahaa trigonometry hadda waxaan isla fiirin doonaa asxaabay videogan mid kale oo ka mid ah casharada ugu muhiimsan trigonometryga kaasoo ciwaankiisu la yiraahdo compound angle trigonometry waa maxay حقلها وحليلة كان trigonometry هذا بس حابي فيديو كسوري وحنا كسو حضرناي خاصة مركا إنه كسو حلينا unit circle كنا وحنا سووا قالناي حقله لبا حقله يسكبوا هي وحويان سقاشن إن يسلاقيهن بالشرط هدي سين يكوس أيهن سؤال الكالكوليتر قاعدة سوق عادته سين صدن أتقلي سين صدن أو لو قدري waxa ay leegtahay afan say sodan waxa ay leegtahay coos 60 sidoo kale waxaan ku soo sheegay 180 laba kasto isku buuxiya waliba sin iyo sin ama coos iyo cosine is leeyihiin sidoo kale 270 kuwa kasto isku buuxiya bishardi sin iyo cos ha noqdaan waa is leeyihiin yani hadii aad calculator-ka soo qaadato aad geliso sin 60 لو بقولي تدواتن كي مسايقة ديمان لو بقولي طبعا كوس لو بقولي طبعا بيسيلقين أذيقوا عن هالمامين أو فيريسو all students take calculus لو بقولي طبعا مركو حويان هلا كمان سقاشن هلا كمان بقولي سديتن هلا كمان محل لو بقولي تدواتن لكن هل قاسي مادام كوس أي نقطي هل قاسي وحويان وحلنا هاي سين لحدن qiimaheeda hadaynu soo helno oo hore baynu naqaano special englishkeena waxa weeyaan baynu ka soo root 3 divided by 2 hadii marka calculator-ka geliso cos 210 waxa ku soo baxaysa minus root 3 divided by 2 adigoo fiirinaya markasta xaqlahaaga sidoo kale waxaan ku labo kasto isku buuxisay 360 way isleeyihiin sidoo kale waxaan ku soo xisaabinay xaqla la yiraahdo ku terminal englishka waxaan yaray waxa la yiraahdaa وحقلها مركين كدرنا 360 أما 360 إنه كجرنا. هذا أنت أصحابي مركا إنه كني مانو. هذا ما أنتوا حين برنينا هدي تسألها عنه كله حقلها سوا قرن كري قاب كوا حساب جري. سؤالها عنه كله هدي ليه دور ما أنت تطبعتني يشان وكله ولا يده حسين تطبعتني يشان انتبه إلى دقنتا. يعني مركا سكر واحد سمعنا يا واحد كو خصبنا هاي حقلها جينا إنه استعماله وحويان كابون إنجليز وأنا كوضه حاجة شنو ماشي أي كتير مادي وين الرادية كدمنا وحلي هذا وإن أن حسابنا أو تطبعتني يشان وحي كتير مادي عدي لفرفرو أفرتني يشان أو لو دري صدن تكري في أفرتني يشان أنا وانقرنايا صدن وانقرنايا كدب وحيالا أنا أقونين با أنت أن فرفرو أو أن يريستو حنكسو صارنايا حقل أنا قان كدب حقلهاس أنا قاني بوحن سمين دونا بان سرادين دونا قيمياشا يوحيالها أي إلى الجمال هذا بقوة سوى حليل هذا أصحابي compound angle بالير هذا compound angle هذا واحد سلفيرين دونا رول الشيء ده أما واحد حليل هذا فورمولوين كا أينو إسراعي دونو أينو كشقيسن دونو هذا واحد قبل عامين صحابي هدينا اللي سيو sin A plus B هدي اللي قصير sin A plus B وحاين ولو دقنتا وكبر فرينا وحلينا هوا sin A cos B أو لو قدري هي cos A sin B هذا أصحابي واحد اللي قاب قاس بينو شقينينا هدي نلويديو واحد اللي هذا حقل تاسوكلا تصالي واحد لويديه sin تضبعتني يشان أوكله أو فرفرت واحد هذا واحد كتمادي أفرتني يشان أو لو دري صدق كدينا ما محي قاب قاس بينو كفرفران دونا قاب قا وحويان بينو فرفران دونا تيدا كلوين إنه سؤال equationات كوين المسكحة كوين أمر كست هذه لنا sin A
a lagu daray b waxay la dhigantaa baan leeyahay sin a cos b cos a sin b labada cos waa inay isxigaan yani cos waa inay isxigaan sidoo kale iyadoo la kala jaray aynu fiirino sin a oo laga jaray b waa isla intii oo kale laakiin calaamadda maxay isu bedelaysaa minus oo waxay noqonaysaa sin a cos b minus cos a sin b waa maxay meeshii balaaska ahayd baa waxaynu ka dhigaynaa minus baynu ka dhigaynaa asxaabay intaasi waxa ku dhamaatay sinta costa aynu isla fiirino cos a plus b haddaba asxaabi costeena marka aynu xisaabinayno oo waxa weeyaan aan raadinayno cos a oo lagu daray b waxa ay inoola dhigantaa costu wixii costa way isxigayaan wixii sin ahna way isxigayaan oo waxa ay noqonaysaa marka cos a cos b meeshaas plus maadaama ay tahay minus bay noqonaysaa sin a sin b waa maxay cosna hadhow marka aynu xisaabinayno formuladaas aanu isticmaali doonaa cos a minus b iyaduna waxa ay la dhigantaa waa isla intii oo kale cos a cos b maadaama iyadu minus ay tahay plus baan ka dhigayaa marka sin a sin b intaana asxaabi waxaan isula garanay costa qaacidada aynu ku helayn haddaba taanta laftigeeda maxaynu ku helaynaa tan a plus b tan a plus b iyada laftigeeda waxa weeyaan maxaynu ku helaynaa waxaynu ku helaynaa asxaabay taantan iyadana waa furfureynaa oo si cos waxaasi ma jidho waxay noqonaysaa tan a lagu daray tan a oo lagu daray tan b oo loo qaybiyey halkaasaa calaamad ka bedelayaa 1 minus tan a tan b 1 minus tan a tan b tan u dambaysa tan a minus b waxa iyaduna ila dhigmaysaa asxaabay tan a minus tan b oo loo qaybiyey 1 plus tan a tan haddaba asxaabi waxa la yiraahdo equationada aan isticmaali doono waxa weeyaan waa equationada weeyaan equationada aan isticmaali doono waa equationadaas weeyaan haddaba aynu isla fiirino qaabka loo shaqeynayo qaabka loo isticmaalayo dhowr example aynu isla fiirino yani waa maxay hadda waxaynu ogaanay qaabka ay tahay tusaale waxa lagu diray waxa la yiraahday use compound angleska raadi baa lagu yiraahday xagal oo la yisiyo tusaale waxa la yisiyo xagash ah 75 yani waa maxay san 75 baa waxa la yiri calculator kaagu adiga oo aan calculator isticmaalayn qiimaheeda soo raadi hadaba shaqada koowaad aan qabanaya waxa is weydiinaya 75 aniga ma aqaana ma aqaano laakiin 75 meesha ay ka timaaday baan garanaya marka waxaan leeyahay waxa ay ila dhigantaa baan leeyahay ila sii dhigantaa sin 45 oo lagu daray 30 kadibna waa garanaya xeerkaygii sin oo plus ah xeerkeedu maxay ahayd waaba kanba sin a plus b waxay ila dhigantay xeerkaygii baan marka hore qornaya sin a cos b plus cos a sin p xeerkaaga xifdinaysa kadib oo ku bedbedelinaysa marka wax kale oo aad qabanayso ma jiro haddaba eedeedii maanta waa tan waa a plus b meel kasto a ana 45 baa dhiganaya meel kasto b ana 30 baa dhiganaya waxay ila dhigantaa ma leeyahay sin kayga koowaad 45 lagu
lagu dhuftay cos soddon lagu daray cos 45 lagu dhuftay sin soddon kadibna waxa mid kasta waan aqaanaa sin 45 waan garanayaa waxay ahayd root 2 divided by 2 lagu dhuftay cos soddon waan garanayaa root 3 divided by 2 lagu daray cos 45 waan garanayaa root 2 divided by 2 sin soddon waan garanayaa half weeyaan kadibna intaasaan ka shaqaynayaa labadaasi waa isku dhacayaan 6 loo qaybiyo labadaas isku dhufo 4 lagu daray 2 loo qaybiyay 4 kadibna hooseeyaashu maadaama ay isku mid yihiin mid ka soo qaado 4 root 6 oo lagu daray root 2 labadaasina iskuma sii dari kardho macnaheedu waxa weeye halka waxa kaaga digaya inaad dhahdo 6 laba ku dar 8 iskuma darsamayaan labadaasi iskuma darsamayaan sidaasi uga tag marka haddaba asxaabi waxa weeye waxaanu soo helnay equation tani oo ah 75 anigu wax calculator kaan isticmaalin qiimaheeda exact value-geeda waynu soo helnay waa maxay waa root 6 plus root 2 oo loo qaybiyo 4 calculator-kana waa gelin kadhaa kana waa gelin kadhaa labadaba isku jawaab waa inay ku soo baxaan oo calculator-kana hadaynu gelinaa indhahno sin 75 wuxuu inoo soo saarayaa 0.9659 batana aan xisaabino marka koowaad root 6 geli root 6 waxa uu leeyahay 2.449 root 6 kaliya aan xisaabiyay lagu daray root 2 baan xisaabinayaa marka labaad root 2 wuxuu ila macnayaa isna 1.414 oo loo qaybiyay 4 kadibna labadaasaan isku darayaa waxaan leeyahay 2.449 plus 1.414 labada hadii la isku daro waa 3.863 loo qaybiyay 4 inta marka 4 u sii qaybiso iyadana waxa ku soo baxaysa qiimo leeg 0.9656 ma 8 sababta 5 baa ka damay doonta kadib hada fiiri asxaabi labadaba nooc ba hadaad isticmaasho calculator-ka markaynu isticmaalno oo wax la yiraahdo qiimaheena raadino qiimahaas ay noo soo baxay markii aan qaadanana qiimahaas ay noo soo baxay macnaheedu waxa weeyaan xagal kasta oo la nasiyo waan xisaabin karnaa waynu furfuraynaa kadib waynu la soo bixi karnaa hadaba taa intaasi hadaan uga baxo aan ku soo mid kale xagal kale aynu ka shaqaynaynaa يعني ما حي امتحانك waxa lagu leeyahay isticmaal waxa soo xisaabisaa xagashatan adigoo aan isticmaalin calculator way ku qabsan kartaa marka waxa loo baahan yahay marka qaar inaynu ku baxsano compound angle-iskeena waa inaynu ku baxsanaa oo hadda waxaana la siiyay tusaale cos -15 baan la siiyay hadaba cos -15 aniga miyaan garanayaa qiimaheeda saxda ah calculator-na ma haysto laakiin waxaan ka fikirayaa meesha ay ka timaaday waxa weeyaan 15 waxa ay ka timaaday yani waa maxay 30 oo laga jaray 45 labadaas hadii aad kala jadho waxa ku soo baxaya 15 teeda kale waxyaalaha aan xisaabsanayo waa in ay tahay special angle-iskayga waa in aan ku xisaabtamayaa special angle-iskaygu sheegani ma kamid yahay maadaama iyaga aan garan karo aan la soo bixi karo kadibna waxa la cos oo minus sameeday waatan maxaa weeye qodoska isxiji sinanka isxiji oo maxay noqonaysaa xeerkeedii waxay ahayd cos a minus b waxay la dhigantay cos a cos b lagu daray sin a sin b kadibna aynu ku bedelno qiimaheeda aynu soo saarno وأنا عندنا cos soddon هي cos 45 lagu daray sin soddon lagu sii daray waa ka xirkay lagu dhuftay sin 45 cos soddon root 3 divided by 2 lagu dhuftay
cos afartan iyo shan root 2 divided by 2 lagu daray sin soddon half lagu dhuftay root 2 divided by 2 kadibna labadaa isku dhufo root 6 over 4 lagu daray root 2 divided by 4 oo la mid ah root 6 oo lagu daray root 2 divided by 4 haddaba asxaabi waxaan isweydiinaynaa y ay iigu soo baxday haddana waxaan xisaabiyey 75 fiiri sin 75 baan xisaabiyey qiimahaasaa ii soo baxay fiiri sin 75 baa xisaabiyey qiimahaasaa ii soo baxay y haddana waxa leeyaan maxay tahay sababta waxa weeye isku qiimaha iigu soo baxday sababtoo ah haddana waxaan kuu sheegay laba kasta oo 90 isku buuxiya oo haddii ay sin iyo cos labadaasi waxa weeyaan ay yihiin isku qiimaha soo baxay haddaba 75 fiiri 90 haddii aan ka jaro 75 waxa ii soo baxaya 15 halkaana waxa weeyaan waan ka xisaabtami karaa waxaan oran karaa cos waxa weeyaan 15 waxa weeyaan maadaama 75 90 hadii 75 laga daro 15 way isleegihiin 75 haddaba asxaabi markastana maskaxda sida ugu hay waxyaalihii oo ah hadii 90 isku buuxiyaan sin iyo cos laba kasta oo 90 isku buuxiya oo sin iyo cos way isleegihiin laba kasta oo isku buuxiya 180 oo sin iyo sin ah ama cos iyo cos way isleegihiin adigoo markastana fiirinaya waaxyihi yani waa maxay waaxyadu waxay sababaysaa kaliya negative laakiin qiimihi isbedeli maayo sidoo kale waxaan laba kasta oo 270 isku buuxiya asxaabi way isleegihiin laba kasta oo isku buuxiya 270 way isleegihiin laakiin bishardi sin iyo cos noqdaan waaxyadiina negative kooda adagoo fiirinaya mid negative noqonaysa negative siinaya haddaba asxaabi sidoo kale waxaanu soo ogaanay laba kasta oo 360 isku buuxiya oo sin ama cos ah ayuu waaxyadii adigu aan marna hilmaameen qiimayaashoodu way isleegihiin compound galiskana waxa weeyaan faa'iidadiisu waxyaalahaas bay ku anfacaysaa aan fiirino hal xabo waxa weeyaduna taana aynu isla fiirino oo tusaale waxana loo diray waxa la yiri tan 105 degree soo xisaab tan 105 horta waaxid markasta waa inaan garan karaa ma positive ama negative baa ii soo baxaya waa inaan markasta wax weeyaan maskaxda waa inaan ku ayran karaa all student take calculus 90 180 qiimaha halkaas soo baxaya 105 halkaas dhacaysa waa inaan qiimaheeno ku sii xisaabtami karnaa si oo darsi karnaa haddaba asxaabi waxa weeyaan aynu furfurno xeerkeena maxay ahayd 105 xagee ka timaaday 105 waxa ka timaaday 60 oo lagu daray 45 60 oo lagu daray 45 105 haddaba aan fiirino marka taanteena oo balaaska ahayd waaba tan qaacidadeeni halkaas ay nagu qoran tahay tan a plus b waxay la macno tahay tan a oo lagu daray tan b oo loo qaybiyay 1 minus tan a tan b kadibna waxa weeye aynu ku beddelano aynu soo xisaabsano marka waxay la macno tahay tan a tan waa a lagu daray b tan a yani tan 60 lagu daray tan 45 oo loo qaybiyay 1 minus tan 60 tan 45 haddaba asxaabi waxa weeyaan tan 60 waan garanayaa oo special Englishkaygii maxay ahayd maxaa iga horeeya yani maxaan ka soo tagay maxaa iga horeeya haddaba asxaabi haddii ay tahay markii ugu horeysay oo aadna soo booqato si special Englishkiisa xog buuxsan ugu heedasho waxaan kula dardaarmaynaa inaad fiidiyo gadaal lagu laabato special Englishka qaabka loo xisaabinayay aad mar labaad nala soo dhageysato haddaba yani taantu maadaama asalkeedu ay ka timaaday sin oo loo qaybiyo cos macnaheedu sintuna maxay ahayd maxaa iga dameeya costuna waxay ahayd maxaa iga horeeya shanteena gacmood markaynu xisaabsano oo sida aynu ka xisaabsano shanteeni 60 yani marka tan tahay 0 tan ay tahay waxa weeyaan 30 45 60 oo maxaan lahayn maxaa iga dameeya
1 2 3 saddex farqood baa iga horeeya maxaase iga horeeya root 3 maxaase iga dameeya yani waa maxay 1 yani root 3 marka waxaan leeyahay tan 60 waa maxay waa tan 60 waxa weeyaan waa root 3 oo lagu daray tan 45 waa 1 loo qaybiyay 1 minus root 3 oo lagu dhuftay 1 isla inteedii weeyaan kadibna waxa weeyaan intaas baynu sii xalinaynaa exactly qiimaheena waynu helnay kadib intaas aan xalinaynaa marka intaas baynu xalinaynaa waxyaalaha ay ka saacidaysana waa inaan mar kasta awood u leedahay inaan xalin ka dhow wixii oo marka waxaan leenahay waa root 3 oo lagu daray 1 oo loo qaybiyay 1 minus root 3 haddaba asxaabi labadaas hadeer haddii aynu fiirino waxyaalaha ay ka siman yihiin waa qiimeyn karna waa maxay labada waa isku mid yani waa maxay waanoo yiraahday root 3 plus 1 loo qaybiyay minus root 3 plus 1 labadu waa isku mid kaliya maxaa lagu kala duwan yahay calaamadaha lagu kala duwan yahay haddii aan meesha calaamadaha ka saari lahaa 1 baa ay soo hari lahaa mislaheena marka halkaas labadaasi waxa weeyaan waxa ay soo hari lahaa 1 laakiinse maanta kaliya waxay ku kala duwan yihiin waa calaamada weeyaan waxay ku kala duwan yihiin calaamada weeyaan kadibna waxaan isticmaalnaa asxaabi waxa weeye conjugate aan isticmaalno yani maadaama halkaas calaamada ay noo tahay labadaas lama saari karo mar conjugate isticmaalo aan dhaho root 3 plus 1 oo loo qaybiyay 1 minus root 3 dhinac kasta maxaan ku dhufanayaa conjugate-ku macnihiisu waa maxay dhinac kasta hooseeyaha ku dhufo dhinac kasta hooseeyaha oo calaamadda aad ka bedesho ku dhufo 1 plus root 3 dhinacna ku dhufo 1 plus root 3 kadibna halkaa waxaa iga soo baxaya root 3 plus 1 oo laba jeer la isku dhuftay root 3 plus 1 oo loo qaybiyay kuwa kan calaamadahoodu waxa weeyaan xeraynu soo dhiganay baynu ku dabaqaynaa oo ahaa a plus b oo lagu dhuftay a minus b xeerka waxa weeyaan aynu soo dhiganay baynu ku dabaqaynaa oo ahaa waxaan leenahay waa 1 minus root 3 oo lagu dhuftay 1 plus root 3 kadibna waxaan sameynayaa maadaama example-keenu ugu dameeya uu yahay intaasoo dhan baan banaysanaya si nadiif ah aynu ugu shaqeyno meesha tan yani asxaabi waa kuu sheegay waxyaalo fara badan aynu soo dhiganay baynu isticmaali doonaa marka fiiri labadaasi waxa weeyaan root 3 plus 1 oo lagu dhuftay root 3 plus 1 oo loo qaybiyay 1 minus root 3 oo lagu dhuftay 1 plus root 3 kadib waxaan sameynaa asxaabay kana xeer aynu soo dhiganay baynu ku dabaqayn oo ahaa a plus b oo laba jeer la isku dhuftay muxuu xeerkeeni ahaa wuxuu ahaa haddii aynu aragno a square garaysan 2ab plus b oo square garaysan yani aan dhahno marka root 3 plus 1 oo maxay laba jeer la isku dhuftay oo loo qaybiyay 1 root 3 oo lagu dhuftay 1 plus root 3 kadibna kan hore aynu ku shaqeyno kan muxuu ahaa fiiri kan koowaad oo a square kan koowaad oo square garaysan square-ki root-ka waa isla baxayaan waa 3 plus labada isku dhufo waa imisa waa root 3 laba ku dhufo 2 root 3 lagu daray 1 oo square garaysan loo qaybiyay marka labada isku dar waa 4 2 root 3 loo qaybiyay hooseeyahana marka fiiri waxa ay furan inaan sameeyo inaan saa isku dhufto fiiri sidaas maanta waa maxay expand aan isticmaalo expand form aan isticmaalo shortcut-ka ama ka dayno macnaheedu waa maxay 1 waxa ku dhufataa 1 waa 1 waxa ku dhufataa root 3 waa root 3 expansion baan sameynaya
minus root 3 waan ku dhufo minus root 3 minus root 3 kan ku dhufo fiir waxaan ku yiri 1 baa 1 ku dhuftay waa 1 1 baa root 3 ku dhuftay waa root 3 way ga dhamaatay kanaan isticmaalaya minus root 3 baa 1 ku dhuftay waa minus root 3 minus root 3 baan ku dhufanayaa 3 labada 3 oo maadaama isku mid ay yihiin waa la isku dhufan karaa yani asxaabay root a waa lagu dhufan karaa root a waa la isku dhufan karaa oo maxay noqon karaan yani waa maxay a square oo root bay noqon karaan laakiin root a laguma dhufan karo root b يعني waa maxay labadaasna waa isku dhufo root 6 يعني waa maxay hadii asxaabi labadaas waxa weeyaan waa isku dhufan karaa labadana waa isku dhufan karaa laakiin isku darka iska ilaali tusaale root a waxa lagu daray root a maadaama 1 u tahay tan 1 ay tahay waa 2 root a root b a oo lagu daray root b macnaheedu waa root a oo lagu daray root b isku ma darsamayaan wayna arki doonaa markaa waxaan ku yiri minus 3 waan ku dhuftay 3 ku dhufo waa 9 calaamaduna waa minus halka marka maxaa iga soo haraya labada tan way cancel doonaan tanna waxa ka soo bixi doona waa 1 minus 9 waxay uga baxdaa root-ka 3 oo la mid ah minus 2 halkaana waxaan qorayaa 2 baan qori doonaa kadibna waxa weeyaan minus-kana kor buu iska tagi doonaa aan dhahno marka 4 plus 2 root 3 oo loo qaybiyay minus root 2 hadaa u sii kala qaad marka oo aan dhaho 4 oo loo qaybiyay minus root 3 4 oo loo qaybiyay minus 2 oo la siimada oo lagu daray 2 oo lagu daray 3 oo loo qaybiyay minus 2 kadibna labadaas waxa ka soo baxaya minus 2 هي minus 2 labadaas qayb dhinaca sadaan 2 qaybiyo minus 2 dhinacana haye minus root 3 ugu dambeyntii natiijadeeni waynu soo helnay oo ah minus 2 root 3 hada fiiri sidoo kale minus kaasi waa waaxdi hadayaan ku lahaa waa inaan sii odors karnaa 105 halkaas ay dhacaysaa marka hadaba asxaabi waxa weeyaan hadii compound angle-keena waxa weeyaan نيل نودر أو لو كمبون إنجليزي كوحويان استعمال أما حاجة لا تدل قصية بقوليشن لحدن بقول لحدن ده قصو صار كرا لحدن كلفت جدي عقرني سي أو هات صالة كوس لحدن يمي سلام ده هاي هاف صومان هاف كاسي وان صو صار كرا هاف كلفت جيسي وان صو حسابين كرا إنه قيم إنه هاف وياي هذا بس حاجة مركان كمبون إنجليزي كوحويان واصدة سويان وحن استعمال دونا كمبون إنجليزي كنا markiina loo daro waxa weeyaan xagalahaasoo aan ahayn special English-keeni hadaba asxaabi hadiyada lagu daro saas wax la yiraahdo baynu xisaabin doonaa markastana muhiimadu waxa weeyaan waa inaynu formulooyinka iyo qawaacidii maskaxdeena ay ku haynaa hadaba daawade waxaad xisaabisaa adigu cos 60 waxay leegtahay half hadaba cos 60 keena adigoo isticmaalaya 30 oo lagu daray 30 maadaama 60 la dhiganto jawaabteeda isku day inaad noogu reebto qaybta commentiga hadaba asxaabi intaasaan ku soo gabagabeynayna casharkeena fiidiyowgeenan hadaba intaynu kulmi doona asxaabi fiidiyowgan fiidiyowgiisa xiga waana way isku duubano idin leh isma dhaafno fi amaanillah